waxaa la yiri kaftan iyo kaadi faniin kar lagu cadaab muta hadii waxaas loo wareejiyo ambasana ira waa dambaaba horjooga kaba ku tukada ayaa qabo mid kale oo argagixisada kamid ah ayay naagtiisa tahay aanba ka soo tagno horjoogahaasi ayay u dhaxday una caruur dhashay maxaa kale oo halkan ka jiro tusaale nasteexa Maxudiin Maxamed 14 jirkeedii ayaa lagu daray horjoogaha faanka miiran kaarigii gawaarida ka rari jiray waqooyiga Muqdisho iyo xoogsadihii magacdoonka ahaa Yuusuf Ciise kaba ku tukade laakiin ay geedaha ka hoos gashay ayaa aabaheed oo argagixisaa uu ku daray nasteexo odaga aabaheed waa taaroolo hore hadda saduurka ugu jiro baqdin iyo inuu daadiyo dhiiga muslimka aabahay ay ugu diray aabahay imaaday dhanina ku siina nima aqaanin waxna ma barash waxaas ma aan baranin inaan ku siina ayaa dhaabo waxa dhamay dhaaftaan ma aqaanin meehana leegi widaan meel igiisana mar cidii inaan noo looda rabaa hooyaday kale ay geeriyo qabtaa ina hooyaday la adeego u joogaan rabaa nin hooyaday waa dhaqan aan rabaa 12 sano ay dhamaaday meeshan amal geli rabo markaas aabahay markiis ma la diidi karo ma oo أنا مركز دوك أنفعي وأنفعي شال إنك أراك أنت ما أنت سايق ولا دي كلا قلت ساسا وبحي مركز جوجا فهمي ومركز تقول دجالة وحارب أبي السين أيوة سكيل جوجي شباب وهاي كوبا كده كذا هذا كويا كإما هذا اللي ما كويا وجي كويا جوجي بهذيك السنة عبطوين بالملاعب سنة كويا جوجي مركز ماشي كنا لا ماشي أنا عدي لا ولا جري البعض دقنا جري عاشا محمد حسن jabeerideeda ka soo koomid hore oo argagixisaha ayaa odaga oo khawaarij ah ku daray hadda samid kale ay u dhaxdaa mid hore aanu inayso 14 sano jira abi ku daray markuu ku daray abu wakiin ninkan ku keenay ina guursataa rabawde hayade ninkiisa sidoo guursad ya al-shabaab ya jamhad loo sidii u guursad ilaa hal wiil oo kasii inuu 8 bilood jira iska furay hadda inuu 2 sano iyo 4 bilood jira intaas dhan hooyaday yaa la noolaa marna inta iimaanay aabe maxamed xasan barisaalla magaca meesha loo yaqaan Ismaaciil Xasan waa kaas jamhad waayane dadku kuwa duur ku jirka nimca maxamuud cabdiraxmaan sugule waxay leedahay waaba iiga soo dhamaatay inaan la sii dhaqmo argagixisada laakiin madaxayga xoog la iga haysta waxaase u sii dheer in qaraxyo ka dhacay Hargeysa uu aabaheed ku dhintay ninka Cabdikariin Maxamed Cismaan baa la dhahaa shaab ah mar dhowna noqday ana waxaan ku guursaday soo macallin dugsiga meel la dhahaa buu hoodle waxayna ahayd xilli hor 2012 deegaan ahaan kuma soo jeedin deegaanka Kismaayo ka soo jeeday oo isaaray wuxuu igeeyay Kismaayo markuu igeeyay wuxuu ku dhahay Puntland soo ku soo karay isku deegaan ku soo karnay xaq wax ku bartay isagoo yar baa la keenay buuhoodle wuxuu dhahay waxaan u noqonayaa Puntland waa la qabsan waaya Kismaayo wuxuu aaday Boosaaso wuxuu ii sheegay inuu galay jaamacadda Bariga Afrika waana arkay warqado iyo waxaas ay codsi dawladda hoose Puntland ku qoran tahay oo jaamacadda uu ku codsanayo maadaama jaamacadda taabacsan uu ka soo baxay oo buuhoodle ku yaala waqti dheer kadib anka Kismaayo iska deganaa 3 ciyaal u dhalay dadka dhan way ogyihiin ehelkiisana way ogyihiin ehelkeygana way ogyihiin muddo kadib waqti dhow waxaan maqlay ninku inuu yahay al-shabaab uu joogo buuraha goolis waan ku qabsaday waxaan ku arrintaas lagu sheegay uu igu inkiray nimankaas anaga colaad baa naga dhaxaysay aabahay oo aniga ay dhalay qarax ku dileen waxay ku aadinay 2008 aabba Allah naxariistay odayaal kala nabadoonnay 5 ayaa waxay u joogeen hawlo dacwo oo dad ehel xirxirnaa iyo hawlihii nabadoonnada waxay u joogeen ma garanay xilligaas waa yaraa laakiin waxa la ii sheegay inay dad xirxiran iyo waxa u dacwoonayeen kadibna waxa la ii sheegay ismiidaamin anigu waa joogay Hargeysa markaa qaraxyo waaweyn baa ka dhacay abaar 4 saac subaxnimo 10 subaxnimo markay ahayd aabahay intaas ku nafooyay anaka duuganay midkiisa noo keenay Allah u naxariisto asaga iyo islaam la dhintay heerkayga waan u sheegay arrinta markaan u sheegay waxa la dhahay arrintaas soo xaqiiqada ku cadaatan iska soo furnaag ninka iyaas ka furi kartay iska soo furnaag dad shicib aan shalay aabahay dilas 18 cunug baan waxaan ku yiraahdaa waa aabahay dhalay Allah u naxariisto anigu waan soo tagay hooyaan la socon ugu tagay kadibna waxaan aaday jilib ninkii oo maqan baantay asaguna wuxuu u soo wareegay meelaha jubooyinka ayaan salaad cabdi ayaa iyana meeshan la taagan sheegasho raqiis ah waxa ahay qof xaas oo magaaladan degan oo ilmo ku haysto oo mudooyin badan xataa laga maqnaa oo marmar aadi jirtay sanadaha u dhaxayaan
marka ugu dambeysay 1 sano iyo 4 bilood kala maqneen cunugaygu ugu yar 3 sano jira marka hadda dhow oo aday muddo laga joogo in muxuu ahay 2 bilood oo 20 biro dhiman aan xagga soo joogay waxaan ugu tagay muxuu ahay culays jir darteed inaan ani asaga aan kala tagno maadaama oo waxna aan ku haysan oo ilmahaygan aniga u xamaalnay garab xamaaltay iska ahay oo magaaladan aan ku noolay عبد عثمان الله سيديدا waxaan عبد عثمان فارح sideed cunuga u dhalo waxna ii nool waxna ii saqiireen ciidamada amniga ee xeebta u galay qabashada gaarigan iyo haweenkan ayay maxkamadda dhageysatay xeer ilaalinta ayaa beenisay marmarsiyada haweenka waxayse maxkamadda ka codsatay in la fuliyo dalabkooda oo ah koow inay iska diiwaan geliyaan haweenka iyo carruurta argagixisada hay'adaha amniga si buuxdana ay ula wadaagaan hay'adaha baarista macluumaadka khawaarijta ay u dhaxayaan ama inaysan ku dhex milmin bulshada ka badqabta dhaqan xumada argagixisada mudan gudoomiye anoo ka faa'iideysanayo maxkamadda maanta aan hor taaganahay xubnaha xaasaska ah ee shabaab ay qabaan ee magaalada muqdisho ku dhuumaalaysanaya waxaa looga baahan yahay in ay isdiiwaan geliyaan ama hay'adaha amniga ee isku sheegaan ee dhahaan aniga ninkaas ay qabo haddii sheegi lahayn hadda 4tan eedeysane mid walba markii la weydiiyey controlka lagu weydiiyey magac been ay sheegatay xog beenana way sheegatay balse kuwa dhuumaalaysanaya weli magaalada muqdisho ku jiro iyo kuwa soo galayaba waxaa laga rabay inay xogta rasmiga ah sheegaan cid xiri lahayd ma laha baarisaa lagu sameyn lahaa xogta rasmiga oo loo diiwaan gelin lahaa qof walba balse nin walba beenay sheegeen sida ka muuqato eedeysanada afaraad ee caasho la yiraahdo ayadana shabaab ay ka tirsan tahay aabaheedna waa shabaab ninkeedana waa shabaab sidaas awgeed magaciyo dhan waa wada qaladay balse baaris dheer la sameeyay kadib waxaa la ogaaday magaceeda rasmiga ah iyo xogteeda oo dhameystiran soo ciddii shabaab ah ama familkeeda ee tahay ama hadday tahay xataa xaas shabaab waxaa laga rabaa inay laamaha amniga u diiwaan geliyaan war ani nin shabaaba ay qabo duurkaasoo ku maqan yahay ka dagaalamaya laakiin ani shabaab ma ihi hay'adaha amniga hay diiwaan geliyaan soo xogtooda waa laga qoraa cid taabanaysa ma laha mudan gudoomiye bacdama aan maxkamadda hor keennay markhaatigii soo qabtay eedeysanayaashan aqoonna u lahaa mid ka mid a eedeysanayaasha bacdama maxkamadda aan hor keennay baarihii galdacwadeedka kaasoo si buuxda u caddeeyey in 4 eedeysane markii la qabtay oo xarunta baarista CID la geeyey ay marin habaabiyeen hay'adaha cadaaladda kana been sheegeen wax ayaga ay yihiin iyo nimankoodii bacdama aan si buuxda u caddeynay in eedeysanayaashan ay qabaan horjoogayaal ka tirsan khawaarijta waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa weliba si xushmad leh uga codsanayaa in ay ku xukunto qodobadii aan ku soo eedeynay maxkamadda waa mahadsantahay qareenka ayaa u sheegay garsoorka inay qasban yihiin haweenkan sidoo kalena ay waajib ku tahay adeecidda nimankooda haba iska ahaadaan argagixiso diinta u qalloocsaday sida u danta ah koonfurtayna Soomaalidu waxay tiraa waa la qaba aqaan way naagta haddii la qabo sax ninkeedii waa qasab waa inay u tagtaa sharciga faraay rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri haddii qof bini aadam loo sujuudayo naaga dhihi lahayd ninkaadu sujuud marka naagta haddii la qabo oo la xaqiijiyay qabaasha ay tahay dambe kale ay salahayn waxay ahayd baaristaas iyo eedeedana maanta maxkamadda la hor keenay ma ahayn baaris ku filnay ahayd hay'adaha amniga ay u sameystaan dhaqdhaqaaqeeda ay la socdaan ay diiwaan gashadaan si kale in loo wajahay maadaama wax dambe ah oo lagu soo saaray ay salahayn maadaama nimankii ay dhibaato sheegteen nimankii qabay ay soo wada tageen ilaa ayaan maahane intii kale ay garoobin yihiin maanta xafiiska la rabay inay daba galaan ayaga mas'uulka ah maxay yeelay xafiiska oo mas'uul ka yahay xiraarinta magaceeda agoonta naagaha garoobta ilmaha yar yar oo agoonta curyaamiinta waxaas oo dhan xafiiska xiraarinta mas'uulka ah hadday ogaadeen gabdhii inay garoob yihiin waxay ahayd inay tixgelin ku sameeyaan xiriirka ay waxyeelaan ayaga naftooda ay ka dhigtaan silsilad ay u maraan nimankaas si loo heli lahay maxkamadda sharafta leh gabdhahaas maadaama la keenan wax cadeen ah loo keenan qodob
qofkii loo soo eedeeyo lagu soo eedeeyo shabaabnimada ahna ay maxkamadda horteeda ay ka cadaaweysay ayagana ay saqiranan shaqana ay ku laheen musaafiriinna ay ahaayeen maxkamadda waxaa ka codsanaya khaasatan gabdhahaas in xorijdooda la siiyo loo fiiriyo qodobka 122 xeerka habka ciqaabta Soomaaliya maxkamadda sharafta leh waa mahadsantahay. fadhigan waxaa soo xiray gaashaanle sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dhageysiga garbaqalka dhanka ka ahaa eedeysanayaal nasteexo muxudiin maxamed ayaan salaad cabdi xasan nimco maxamuud cabdiraxmaan iyo caasho maxamed xasan bariise intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaan go'aan ka soo saarayso fadhi waa noo xiran yahay cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka muqdisho.